hadda waxaa taqaanaa waxyaabo badan oo ku saabsan Photoshopka sida loo sameeyo bannerska, shapeska iyo waliba noocyada kala duwan ee selectionka. casharkan insha Allah waxaan ku qaadan doonaa inagoo sameynayna website bannerkiisa ama boordan website-ka mataqaanaa xagga sare inta badan website-dooda saaran yihiin ayaynu sameyn doonaa insha Allah. file new file marka hore ayaynu soo furina waxaanu bixinaa waxa la banner waxaynu ka dhigaynaa Wordska 900 sida website-dooda intooda badan bannerskooda ay yihiin. xaggan waxaanu ka dhigaynaa 200 kabacdina halkan waa inay ku doorantahay waxa la pixels. okay ayaan leenahay bannerka marka ugu horeysa background-kan ayuu ka kooban yahay. waxyaabaha aynu u baahanahay waxaa ka mid ah sawir, midab iyo waliba mataqaanaa noocyada kala duwan ee shapeska. website-keena waxaan u bixinaynaa waxa la fogaal arag news. marka ugu horeysa waxaan isku dayaa inaan website-ka magaciisa qoro. text tool-ka tag waxaan leenahay new layer textiya waxaan u bixinaynaa fogaal arag. maadaama aynu ku shaqeynayno background waxaan u baahanahay background ku saabsan website-keena. marka ugu horeysa wixii maadaama news yahay waxaan u baahanahay journal. file sawir journal ayaynu raadinaynaa. journalkan ayaynu soo qaadanaynaa. sida ujeedaan journalkan background-kiisu waxa weeye inkastoo transparency-giisu aad u yartahay background-kiisu waa cadaan. marka waxaan sameynaa quick selection tool waxaanu yareynaynaa magnitude-ka adoo isticmaalaya practice-ka kabacdina si uu image-keenu mataqaanaa aynu daaqada u select garanayo qayb ka mid ah journalka. marka waxaan isticmaalnaa minuska hadaynu doono inaan intana gaar uga saarno waayo wuu inaga dhex galay. insha Allah waxaan ku kofar garaynaa waxyaabaha aynu kusoo qaadanay. intaan marka journalka helno waxaan taabanaa Ctrl Shift I ama waxaan tegaynaa select inverse. intan ayaynu Ctrl X dhahaynaa ama jaranaynaa. waxaan tegaynaa bannerkeeni new waxaan u bixinaynaa layer la dhaho news focus ama news letter kabacdina halkaas ayaynu ku paste karaynaa. haddaad shiidid marba yareysid image-kani waxaa lumaya transparency-giisa marka ama waxaa lumaya inuu quality-giisa ayaa lumaya. marka right click haysanaysaa waxaad leedahay convert to smart object. halkaas ayaynu kasoo jiidanaynaa halkaas ayaynu keensanaynaa waaynu resize ayaynu ku sameynaa. mar walba aynu resize-kiisa badino yarayno waxba resolution-kiisa iska bedeli maayaan. just for example adiga hadhow waxaa qurxin ka samayn kartaa. marka intaa sameyno waxaan u baahanahay oo kale halkan waxaan u bixinaa background si aynu kala garanno layeradeena magacyadooda. waxaan kale u baahanahay calaamad wall ah ama adduunka oo kale ah ama news oo kale ah ayaynu u baahanahay. tan aynu soo qaadanaynaa waxaan isticmaalnaa quick selection tool-keeni intaana iga reeb kabacdina waxaan leenahay select inverse cut intana waa jaranaynaa. waxaan tegaynaa bannerkeeni halkan ayaynu new layer baynu sameynaynaa. waxaan u bixinaynaa wall kabacdina halkaas ayaynu ku paste garanaynaa. si aysan quality-ga inoogu lumin waxaan sameynaa right click convert to smart object. halkaas ayaynu isagana ku dhejinaynaa. waxyaabaha kale inuu baahanahay waxaa ka mid ah background. marka waxaan sameynaa new layer ama background-keenan ayaynu waxaan ku sameynaynaa waxaan tegaynaa gradient tool-ka kabacdina background-nadaas ayaynu mid ka mid ah saaraynaa. background-ka marka inoogu habboonaada ayaynu saaraynaa ama background-nada kala duwan halkan ku jira ayaa mid kasoo dooranaysaa ama sawir caadi ah adigu garanaysid inuu sawir yahay ayaa marka waxaan saaray. intaa markaanu sameyno background-keena salaxno waxaan u baahanahay waad aragtaan labadan sawir inay kasoo horeeyaan background-ka. marka si ay uga dambeeyaan waxaan sameynayaa background-ka ayaan daba marinayaa oo image-ka way kasoo horeeyaan sida u jeedaan. marka waxaan sameynaynaa marka text-ga ayaan dooraynaa ayaan leenahay right click ayaan siinaa blending options-ka dooranaysaa. color-ka marka ugu horeysa soo bedelaysaa maadaama color-ku waxaad ku shaqeynaysaa uu yahay blue. color kale waxaa fiican ka duwan oo usoo eeg background-ka kabacdina waxaan bedelaynaa waxaa la dhaho stroke ayaynu ku yara badin karnaa. preference emboss-kana dhumucdiisana waynu weyneyn karnaa laakiin waxaas dhow ma baahna. just waxaan u baahanahay drop shadow iyo strokes-kan inaynu mataqaanaa waxa meesha la dhaho waxaan tegaynaa waxaa la dhaho
counterka kabacdina halkan ayaynu wax badan ka bedbedeli karnaa dhumucdiisa halkan ka yareyn karnaa soft baynu ka dhiganaa maadaama wuxuu news yahay kuwan kala duwan ayaad dooran kartaa iyo angalka harku kaga imaanayo intaa markaa samaysid waxaad u baahan tahay inuu qoraalkaagana ahaado far gaara marka farta adigu markaa rabtid ayaa soo qaadanaysaa inagu fartii aynu soo qaadanay fartan ama farihii kala duwanaa ayaa far ku habboon marka oo website-kaaga khusaysa dooranaysa marka simply waxaad samaynaysaa marka hore kana highlight samaynaysaa kabacdina farahana ku dul soconaysaa farta marka u baahatid ayaad ka helaysaa far ku habboon farta ku habboon markaad dooratid website-kaaga oo aad soo fartaas ku habboon resize ayaa ku samaynaysaa Ctrl+T kabacdina aad adunta logo u samaynaysaa waxaa kaloo kusoo dari karnaa qoraal yar oo ah xaggan hoose ku jira anana kala soco farta yaryaree marka fartaan iska yaryareyno waxaan ka dhigaynaa fartaan 18 pixel anana kala soco qoraalkan fartiisa ayaynu bedelaynaa ama kalarkeeda kalarkan doono ayaynu ka dhiganaynaa marka kalarada waaweyn ee kala duwan ma fiicna marka kalaro waxaa fiican mataqaanaa isku mid ah ama si soo dhow marka intaad dooratidna waxaad samaynaysaa Ctrl+T ayaa leedahay inta aad rabtid inuu ku fadhiisto ayaa qoraalkaaga ku samaynaysaa nice inta markaa samaysid just waxaad u baahan tahay calaamado yaryar oo mataqaanaa ka dambeynaya waxaa la dhaho image-kaaga tusaale fogaal arag maadaama website-kan yahay custom shape ayaynu soo qaadanaynaa shape-kaasoo u taagan wax aragti ama il ama spot oo kale wuxuu taagan ayaynu soo qaadanaynaa kaasoo kale ayaynu soo qaadanaynaa kabacdina halkaas ayaynu ku sameynaynaa waa shape-ka yar halkaas ayaynu saaraynaa shape-keennii waxaan kaga dhigaynaa fit inuu ku filnaado shaashadda marka website-ka marka aad aragtid waxaad fahmaysaa wax badan inuu taagan yahay just qoraalkaagan farta aynu iska soo bedelno far qurux badan wali ma hayno taxandaana fardaanadaas aynu doonaynaa sizekeedana waynu weynaysiinaynaa marka website-kaaga qaabkaas oo kale ayaad bannerkiisa ugu samayn kartaa hadhowna waxaad ku save garanaysaa file save as marka ugu horeysa waa inaad photoshop ahaan u save garaysaa tirada banner kabacdina aad ku save garaysaa meesha aad markaa rabtid kaas waa photoshop oo editable hadhow dib baad u edit garaysan kartaa haddii kale aad doonaysa inaad website-ka soo saartid waxaad ka dhigi kartaa png ama jpeg ayaad ka dhigi kartaa kabacdina save ayaan leenahay haddaynu ku noqono meeshii faylasheena yaaliin aynu baarno bannerkeeni website-kii waa